dalladda iskuulaadka Bushra waa dalladda waxbarasho ee ugu weyn ee gaar loo leeyahay ee ka jirta xeryaha Dadaab ee dalka Kenya. Mas'uuliyiinta iskuulaadka Bushra waa dadkii ugu horreeyay ee ku fikiray inay iskuulaad gaar loo leeyahay ka furaan xeryaha Dadaab. waxaana 10 sano kadib iskuulaadka Bushra ay noqdeen iskuulaad waaweyn oo ka kooban 4 iskuul hoose dhexe iyo dugsi sare oo ah nooca isku dhafka ah ee lagu barto maadiga iyo diiniga. Cabdiwali Xuseen Maxamed agaasimaha iskuulaadka Bushra iyo maamulaha iskuulaadka Bushra Sulaymaan Cumar Kaynaan ayaa ka warbixinaya sababta ay iskuulaad noocan uga hirgeliyeen xeryaha Dadaab. markaan 2008 iskuulaadkan bilaabeynay ujeedada aan u bilownay waxay ahayd manhaj cusub oo aan dareemeynay baahidiisu inay jirto ayaan wadnay. halkan waxaa ka jiray waxbarasho maadi kaliya oo secular ah oo ay gacanta ku hayeen hay'adaha UNHCR iyo qaybo ay waxbarashada iyaga wakiil uga ahaa markaa. waxaa kaloo jira waxbarasho madaaris islaami ah oo diiniga kaliya jirtay. waxaan u aragnay inay jirtay baahi ah in canuga ardayga Soomaaliyeed ee halkan jooga ay suurtagal tahay in waqtigiisa si fiican loo maareeyo uu heli karo fursad uu ku barto maadooyinkii maadiga ahaa manhajka waxbarashada wasaaradda waxbarashada Kenya ay ogolaatay iyo maadooyin diini ah oo la rabo ardayga diintiisa iyo thaqaafadiisa diiniga iyo dhaqankiisa iyo dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa inay wax ka qabato. fakarkaasaan aad iyo aad in badan ka fakaraynay. wadan iskuulaadka bilaabeynay 6 galaas iyo hal xafiis ayaan ku bilownay. dugsi hoose dhexe ayaan ku bilownay waa goobta hadda aan taaganahay. alxamdulillah galaaska nursery ay dhahan ilaa iyo galaaska afraad tira ilaa iyo 100 ilaa iyo 300 dhan ayaan ku bilownay. muddo kadibna iskuulka horumar fiican ayuu sameeyay. sida la ogyahay xilligan bilaabeynay Bushra Academy xerada wax iskuula oo gooni loo leeyahay ma jirin. iskuulaadkan isku dhafka ah dib ay ka yimaadeen laakiin iskuulka ugu horeeyay oo xerada ka bilowdo ayuu ahaa Bushra. alxamdulillah carruur badan waa ka aflixeen waan lagu liibaanay. 2011 ayaa ardayda ugu horeysay ka qalin jibiyeen. isla markiina waxaanu ku degdegnay inaan haddana dugsi sare aan horey uga bilowno oo ku guuleysanay. iskuulaadka isku dhafka ah ee isku si loogu barto maadiga iyo diiniga ayaa aad ugu badanaya xeryaha Dadaab. hase ahaatee dadka qaar ayaa weli su'aal gelinaya in ardaygu isku mar baran karo maadi iyo diini iyaga oo aaminsan inay ardayda culays ku tahay. Cabdifataax Xasan Maxamed waa macallin maadooyinka diiniga ka dhiga iskuulaadka Khayraad Academy oo ka mid ah dalladda iskuulaadka Bushra. waxa uu ka hadlayaa suurtagalnimada ah in maadi iyo diini isku mar la baran karo. way dhiga kara qofka siisa maalinka horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay maskax wanaagsan buu siiyay oo weyn. waaragteen electronic iyo computer iyo aalad hadda ugu duubaysidba ibn aadan baa maskaxiisa ku sameeyay. computerka arkaysi ibn aadan baa sameeyay intaas wax lagu kala rajid karayo. wuu awoodaa qofka inuu diini iyo maadi ba dhigto. waliba anaga waxaan si xoojinaa diiniga iyo maadiga labadaba waa xoojinaa si sama u wadnaa. tarbiyada carruurta waxa weeyaan haddii akhlaaqiyan tahay tarbiyan ay tahay inta wax micnaha waanu ka dhisnaa ardada. wuuna dhiga kara aniga labada diin iyo maadi labadaba dhiga kara. Aamin Axmed Ibraahim waa arday dhigata fasalka afraad ee iskuulka sare ee Bushra. waxay nala wadaagaysaa waayo aragnimadeeda ku aadan waxbarashada isku dhafka ah ee maadiga iyo diiniga oo ay soo waday ilaa dugsigeedii hoose. diiniga iyo maadiga in la isla dhigan karo waa wax iska cad waa la isla dhigan karaa. qofkana waqti badan kama dhumayso isagoo diinigii ka dhisan maadigii ka dhisan yuu bogayaa shaqooyin badan buu helayaa. diinigii wuu u qalmaa inuu helo shahaadadii buu wataa maadigii wuu u qalmaa inuu helo wuu wataa. haddii labadaba markaad isla barato waxaad awoodaa hataa inaad diinta faafiso daaci aad noqoto qof diinta faafiyo meel walba tago because maadigina ka dhisan tahay diinigina waad ka dhisan tahay waana la isla baran karaa. annaga soo baranay dad badan oo hadda naga horeeyay oo bogeyna barteen madrasooyin dhigaan jaamacado diini qaar galeen qaar maadi galeen. waxaan ku boorin lahaa ummadda muslimiinta meel walba joogaan in la isla dhigan karo diiniga in isla bartaan. because qofka markii asagoo hadda isagoo weyn hataa markuu iskuul tago uu wada hataa way ku adkaanaysaa inuu diiniga dib ka soo barto. Deeq Dhowlawaa oo ah gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulka Khayraad Academy waxa uu qabaa in waxbarashadu maadi iyo diiniba ay muhiim tahay. waxaase uu ku talinayaa in xoog la saaro dhinaca diiniga. waxbarashaduna waxa weeye waa furaha qofka adduun iyo aakhiraba hadduu maadi iyo diin ma barto
waxaan maaragtay sii adkaynaynaa in maaragtay diinta awoodda la saaro marka sidaa weeye iskuulladana waxaan aad u sii jeclaan lahayn in naloo sii siyaadiyo oo weliba xaafadaha iyo lagu sii dhoweeyo meelaha populationku joogo marka aad baan u soo dhawaynaynaa iskuullada in laga furo meelaha dadka populationka uu ku dhow yahay si maaragtay ardaduna u nasato waalidkuna u nasto iskuulaadka Bushra waxay ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya waxaana sanadihii ugu dambeeyay ay kaalimaha hore kaga jiraan iskuulaadka ay ardadoodu natiijooyinka fiican ka keenaan dhinaca imtixaanaadka ee ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Ahmed Abdullahi Jaamac Ahmed Deere Jubaland TV